Sheekh Cusmaan Bare Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle oo la hadlaya telefishinka bulsho ayaa ka hadlay xaaladda guud ee ay ku nool yihiin shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada. Gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Hirshabelle guud ahaanba ay u baahan yihiin in si dhow lala socdo xaaladooda, isla markaasina waxa uu tilmaamay in akhbaari ay ku soo gaartay goobo ay ku nool yihiin dadka danyarta ah inay dhibaatooyin ay ku hayaan biyaha webiga Shabeelle iyo roobabka dayrta oo si toos ah ugu bilowday deegaanada maamulka Hirshabelle guud ahaan. biyaha la sii daay oo matooro inta la keenay biyaha laga bixiyay waa soo aragnay, meel hadda halis oo biyaha soo socdaan waa soo aragnay. marka waxaan codsanaynaa hay'adaha caalamiga ah ee caawiya ummadda Soomaaliyeed in ay caawiyaan dadka Hirshabelle gaar ahaan caasimadda Jowhar fatahaadda soo fool. maxaa yeelay shacabka maanta ayuu u baahan yahay in wax la taro. maalintii biyahaas ama wax ay aafeeyaan ama dalagga ay jaraan ama ay guryaha dadka shacabka ka saaraan, maalintaa kadib dadkaas caawin uma baahan. waxaan soo arkay guryo biyaha ay dul mareen, qaar ay biyaha dhabar ku hayaan, qaar ay halis ku jiraan. marka anoo ka hadlaa magacayda iyo kan madaxweynaha kan dowladda kan baarlamaanka intaba in dadkaasi gargaara degdeg la soo gaaro oo ugu horeysa caawinta ama gargaaridda fatahaadda soo wajaha. dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed ayaa tilmaamay in maamulka gobolka iyo kan degmada laga doonayo in si dhow ay ula socdaan xaaladda guud ee magaalada Jowhar, isla markaasina waxa uu sheegay in amniga guud ee magaalada Jowhar uu u baahan yahay kawarqab dhow, isla markaana uu tilmaamay in maamulka gobolka iyo kan degmada laga doonayo in ay u dhaqaaqaan inay ogaadaan guud ahaan deegaanada maamulka Hirshabelle amnigooda. waxaan kaloo rabaa in ku daro aan ilaaway amniga shacabka amniga waa in ka qayb qaataan. hadda maamulka gobolka waxay ii sheegeen meel wax ka jiraan ay ii sheegeen, waxaan leeyahay ha lagu baxo arrintaas degdeg wax loogu qabto. amniga waxaan leeyahay ha la iska kaashado oo dhinac walba leh. waxaan codsanayaa in la iska kaashado ciidamada iyo maamulka wasiirada dhammaan shacabka waa in iska kaashado, waa in la gacan siiyaa qof walba adiga ammaankaada ayay dan ku jirtaa. ugu dambayn gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed ayaa bulshada ugu baaqay inay u istaagaan dib u soo celinta bilicda magaalada Jowhar oo tilmaamay in tartamo ay kula jirto deegaano maamul goboleedyo kuwaasi oo ka horeeyay, isla markaasina dowlad goboleedka Hirshabelle uu yahay maamul curdun ah, lana doonayo in shacabku iyagu ay garbaha isqabsadaan si magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ay ugu muuqato magaalo madaxda maamulka Hirshabelle. qodobka labaad oo u baahan in wax badan laga qabto waa sanitation ama nadaafadda. maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaa la farayaa inay wax ka qabtaan. waxaan isleeyahay taasu dhaqaalo badan shacabka in la baraarujiyo ama shacabka la abaabulo u baahan. shacabka qof kasta galiraaya gurigaaga hortiisa aduu wasaqda taala ka qaad ayaa ku filan. caasimadaha kale iyo degmooyinka iyagana baaqaas mid lamid aan u dirayna. Cabdifataax Ahmed Maclow, Cabdifataax Zaki, telefishinka caalamiga ah ee bulsho Jowhar.